arinta abaaraha waan ka jawaabayna xukuumadana ka jawaabtay ilaa hadda 4 qof biyo la'aan ahaan kara ma jiro waad ogtiin marka inta oo la qayliyo iyo roob la'aanta jirta ceelasha laga cabayo iyo biyaha dhaaminayo iyo hawsha socota dawladdan baa wada badankeeda 95% qof ganacsado laba booyad intuu qaado soo sawir meel soo geliyo marka laga tago biyaha la cabayo water source kale waxay iyo generator kicinayo dadku waxay waraabayaan dawladdan baa wada cid kale ma wado waana wax la arki karo laga yaabo xagga saxaafadda in laga gaabiyo laakiin arinta abaaraha waana ku kalsoonahay 100% 200 inaan ka jawaabayno arinta abaaraha laakiin ka jawaabida abaaruhu 15 sano ka shaqeynay anagu cilmi bay leedahay madax istuuqaya ayga ordayso oo distu walaaqaysi iyo kuwa jirkaana wati iyo uma baahna ka jawaabida abaaruhu uma baahna waa sida siyaasadda loo khalday baa ka jawaabida abaaraha loo khalday saas ma nuglaanshaha si badinaysa oo dadka meelaha inta joogto wax kaalayo maxaa tiraa ma loo baahna waxyaalaha loo qayliyo ka mid tahay waa khalad disaster reduction strategies iyo fikir adduunka ka shaqeeyo la yaqaan baa jira waana bilowni waana ku kalsoonahay waxa hor qayladaas abaartu saddex ka socotaa mid way jirtaa abaartii wadhi baa jirta dadka xoolaha baa ka dhimanaya dhibaataa jirta biyo la'aan baa jira baad la'aan baa jirta jiilaa lagu yahay hawsha lagu jira waa in laga jawaabo goldololooyinka jawaabida xaggeeda way jirtaa waa maamuladii iyo anagii iyo kulligeeno laga yaabo meelaha qaarkood wixii laga qaban lahaa in laga qaban ta saddexaad corruption iyo in haddana abaartan meel musuq laga samaysto oo ama maamul ha noqdo ama ganacsado ha noqdee uu masiibada ummadda ku bidin laga taajirana way jirtaa hanqaltaag nuucaasi biyo aan dhaamin oo kanaan samayno sida aan yeelo malaayiin lagu qaato la rabo taasna way jirtaa been ma hadallada imika aan leeyahay caawa la qaadiyo inta la kala sarifaa kana beer abaartii dhaneed buu leeyahay waa sidan yaa la oran doonaa hadhow laakiin runta waa in la sheego waxa kale oo jirta oo halka iyaduna ku jirta abaarta sawaxanka abaarta imika bilowday wuxuu hordhac u yahay waa laxankaas wuxuu hordhac u yahay muusiq kale oo la garaaci doono oo ah miisaaniyadii xagee tagtay soo socda jirta away miisaaniyadii ma la wareejiyo yaa soo socota laba wareejinayo jeedka jiga waan wadaynaa biyaha waan gelinaynaa horumarka la waday iyo waxa laga shaqeynayo lama wareejinayo miisaaniyadii lama wareejinayo dadka abaaraysan xoolo dhaqatada way magaalooyin kuwa joogaaba dhaqaale u baahan yihiin sicir bar baa jira noloshii baa ka xumaatay inta yar isha u socota hadana hala joojiyo waa siyaasad kale iyaduna wadhica kale ma la wareejiyo miisaaniyadda ma la wareejin anagu wareejin baanu fikiri karnaa oo xal kale keeni karnaa haddaba 500 milyan oo amaahan doonanay oo sanadka dambe miisaaniyadda laga jaro andiro meel dhiganay oo kaga jawaabi doonaa abaaraha uma baahintan inaan joojino inaan iyaga qancinana uma baahin hawsha abaaruhu marka waan ka jawaabaynaa oo ku kalsoonahay qaabkii loo jawaabi lahaa qaab dhismaadkeedii iyo dabagalkeedina waan bilownay hadda un bay xaaladeeda u soo kululaanaysaa bisha January iyo February iyo March iyo horaanta April 3 bilood iyo 12 cisho ugu yaraan waa in si joogta hawshaas degmo gobol meelaha daran ee baan in 93 degmo mid lacag la isaga diro maaha meelaha aan u baahnayn baa jira meelaha u baahan inta la cayimo in la tago weeyaan oo laga jawaabo haddii dad gaajo u dhimanayo iyo macaluul iyo ay dilacaan mas'uuliyadii waan gabnay waxaan sheegaynaa waan ka gaabinay haddii aan badbaadino oo annaga iyo Ilaahay isla kaashanay shacabkana waan ka gudbinana waan inta waxa meesha yaala natiijadan baa laga ogaan doonaa laakiin sawaxankani qayb ahaan tanqasho uu noqon karaa dad fara badan oo wada laakiin qayb ahaan ad sawa la qabsanayaadii muusiqi ku xiga buu noqon karaa laftigeeda muusiqi socday ad sawa la qabsanayaa iyo maxay ahaa maadaama iska damay ku kalo haddana hor la daaray uu noqon karaa abaarta Ilaahay baa keena biyo la'aanta Ilaahay baa keena laakiin ka jawaabideedu waa mas'uuliyad inaga wada saaran xukuumaduna dadka ku soo riixi mayso iyo qaaran keena iyo urur in la yiraahdo waa inay mas'uuliyadeedu gudataa waanu wadnaa ahmiyaduna waxa weeye koow dhimashada dadka iyo macaluusha inay dhicin in laga hortago laba in xoolaha la badbaadiyo hadii la karayo haddaan xoolaha la badbaadin karin laakiin dadka in la badbaadiyo ta laga hadlay taa weeyaan taa in la isugu geysto ayaa muhiima